السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دوادة channelka محمود عبد الله حسن. maanta iyo video cusub oo ka hadli doono dalka South Sudan. channelka subscribe si videoda like gare comment-na xagga hoose ku qor. dalka Koonfur Sudan ama Republic of South Sudan waa dal ku yaala waqooyiga bari ee qaaradda Afrika. waqooyi waxaa ka xidhaya dalka Sudan, barina waxaa ka xidhaya dalka Ethiopia, koonfur barina waxaa ka xidhaya dalka Kenya, koonfurna waxaa ka xidhaya dalka Uganda, koonfur galbeedna waxaa ka xidhaya dalka Congo, galbeedna waxaa ka xidhaya dalka Central Africa. cabirka dalka South Sudan waa 619,745 kilomitir oo square ah. tirada dadweynaha ku nool dalka South Sudan sanadkii 2018 wuxuu ahaa 10,980,000 oo qof. xagga labada qabiil ee ugu waaweyn ee dalka ku nool loo yaqaana Dinka iyo Nuer. magaalo madaxda dalka South Sudan iyo caasimadeeda magaceedu waa Juba. diinta dadweynaha dalka South Sudan waa 80% Kristan, xagga muslimiintu yihiin 18%, kuwa bilaadiintu yihiin 2%. luqadda dalka South Sudan waxa waaye af Ingiriisida xagga luqadda Carbeed soo gasho afka labaad. lacagta laga isticmaalo dalka South Sudan waxaa loo yaqaanaa Pound South Sudan. madaxweynaha dalka South Sudan magaciisu waa Salva Kiir Mayardit. dalka South Sudan xorriyadiisii wuxuu kala soo noqday Sudan sanadkii 2011. dhaqaalaha dalka South Sudan aad iyo aad ayuu u liitaa. xagga soo saarka dalka Sudan uu yahay shidaalka iyo macdanta sida dahabka iyo diamond-ka. xagga dadweynaha ku nool dalka South Sudan 80% ay ka shaqeeyaan beeraha iyo xoolo dhaqatada. waxbarashada dalka South Sudan aad iyo aad ayay u liidataa. xagga waxbarashadu 3 qaybood u kala baxdo: dugsi hoose iyo dugsi sare iyo jaamacad. xagga macallimiinta afka Ingiriisiga wax ku dhigta aad iyo aad u yar yihiin. caafimaadka dalka South Sudan aad iyo aad ayuu u liitaa. xagga dalka uu ka cabanayo cusbitaalada ku yar iyo dhakhaatiirta ku yar iyo dawooyinka aad iyo aad u yar. cudurrada ugu waaweyn ee dalka South Sudan waxaa ka mid ah malaariyada iyo TB-da. dalka South Sudan waxaa soo maray dagaal sokeeye sanadkii 2013 ilaa sanadkii 2020. xagga uu dagaalkaasi dhex maray ciidamada dowladda iyo ciidamada mucaaradka. dagaalkaas sokeeye waxaa ku dhintay 400,000 oo qof. xagga ay dadweyne gaaraya 4 milyan oo qof dalka ka qaxeen. sanadkii 2020 bishiisii labaad dalka Sudan waxaa ka dhalatay dowlad cusub oo wadaag ah. channelka Maxmuud Cabdulaahi Xasan wuxuu ku rajaynayaa daawasho wacan iyo mid qiimo leh. waxaan degmada ku hayabaa madalxiisaan u baxay muddaan xaraf tegey mataanaha nasaha iyo sheekh madar milay dheer maanka waxaan degmada ku hayabaa madalxiisaan u baxay muddaan xaraf tegey mataanaha nasaha iyo sheekh madar geesa ku maray mahuraanka burciyo togdheer madasha ah nugaal xaysiyo maydh maashiiyey habluqu bclub19.com hablahaan magac weynar geesa ku maray mahuraanka burciyo togdheer madasha ah nugaal xaysiyo maydh maashiiyey habluqu
masawacan boosaaso iyo mudug laha muqdishiyo marka cadgala mawjada habaydhabo kismaayo kumiyan mirta gaarisa mulaaxada jigjiga malkada boorame masnada diridhabe maamuusta hablaha jabuuti mugiin masawacan boosaaso iyo channelka subscribe si videoga like kare kumadna xagga hoose ku qor